si uu hubiyo tayada iyo noocyada kala duwan ee uu ka kooban yahay raashinka ciidanka xoogga dalka ayuu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre waxa uu kormeer shaqo ku tagay baqaarka kaydka raashinka ciidanka xoogga dalka Soomaalida ee magaalada Muqdisho. Raashinka ku jiray baqaarka kaydka raashinka ciidanka ayaa isugu jiray bur, bariis, saliid, malaay ama kalluun ay aad u sareysay tayadiisu. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre wuxuu indheeyay tayada iyo noocyada kala duwan oo ka kooban yahay raashinka la siiyo ciidanka militariga Soomaaliya, halka warbixino ka dhageysanaya ku aadan qaabka loo bixiyo raashinka iyo sida loo hubiyo raashinku gaaray ciidanka xoogga. Saraakiisha ciidanka militariga ugu horeeyo taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre weliyo taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka militariga ayaa booqday xarunta loogu talagalay in la dhigo warshada lagu sameynayo dareeska ciidanka, taa oo hirgelinteeda ay ka dhiman yihiin agab yar oo uu ra'iisul wasaaruhu ballan qaaday in dhawaan la dhammaystiri doono si warshada u soo saarto dareeska kala duwan ee ciidanka qalabka sida. Jenaraal Maxamed Maxamuud Garabey madaxa hoggaanka saadka ee ciidanka xoogga dalka oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sharaxaad dheer ka bixiyay ujeedada kormeerka uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ku yimid baqaarka kaydka raashinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaruhu dhabagal buu ku waday dhammaan dalka oo dhan, gaar ahaan wuxuu aad iyo aad u daneynayay inuu ogaado nolosha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kaydadkiisa. Marka maanta booqashadu ay ahayd booqasho ugu talagalay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kaydadkiisa raashinka iyo meel ku nool inuu soo booqday muhiimadiisu ay samaanta. Marka waa ku mahadsan yahay ra'iisul wasaaruhu, waana ku faraxsan yahay runtii. wuxuu indhihiisa ku arkay waxa ciidankiisa uu cuno, wuxuu indhihiisa ku arkay sida ciidankiisa hantida loogu hayo, wuxuu ku faraxsan yahay sida wax loo diiwaan geliyo, sida loo diyaarsho, wuxuu markay soo galaan iyo systemka ay ku baxaan iyo dokumentiyada ay ku baxaan runtii aad ugu dhabagalay. waana arrin aad u wanaagsan oo dhiirigelinaysa in ciidamadu ay waxa la siiyo ay gaarsiiyaan cid loogu talagalay. wuxuu booqday ra'iisul wasaaruhu warshadii tolmada dharka ee dawladda Turkiga noogu talagashay baqaaradeeda iyo qaabka ay tahay in loo kiciyo iyo sida loogu talagalay in bal wixii hore haday shaqay waayaan bal mar labaad in warshadii dib loo habeeyo dhismaheedii iyo shaqaalaheedii si warshadaas looga faa'iideysto ciidanka xoogga dalka Soomaaliya aysan u baahan inay diriis ama uniform ay adduunyada ka raadsadaan. marka warshadaas waxaa noogu talagalay dawladda Turkiga na siiyay muddo dhowr sano halkan taala wayna leeyacanta runtii. marka ra'iisul wasaaruhu wuxuu soo booqanayay dhismihii loogu talagalay oo aan ku talagalkii loogu talagalay iyo xilligii loogu talagalay aan shaqeyn. marka wuxuu hadda daneynayaa inuu mar labaad oo asagu intuu joogo oo ciidanka u dhiso warshad shaqeynaysa. maxay tahay caqabadda hortaagan warshadana inay soo saarto dhar? warshada tani muhiimadda ugu ballaaran waxay ahayd ku talagalkeeda dawladdu markayna sinay Turkigu in anaguna ku bixino contribution aan ku bixino, iyaduna 80% ay bixiso, 20 ka hartan in dawladdu markaa joogtay dhamaystirtay ahayd. taas waa suurtagali weysay. marka warshadii hadda meesha ay ku jirto waa meel aad iyo aad u layacan. information arrintaas oo maqlay wuxuuna hadda ku adkeynayaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya warshadaas oo didibada u aaso wixii facility ku bixinaya inuu ciidanka bixiyo. warshadani in la helo maxay faa'iido leedahay ciidanka? ma sha Allah, warshadani waa warshad dharkeeda wadata, qalab casri ah ku rakiban yahay, baahi tiri karta dhammaan ciidamada qalabka sida booliiska, nabad sugidda, ciidan walba ciidanka qaranka oo dhan baahi tiri karta marka la istaaro. waa warshad runtii aad baaxadeedu weyn tahay. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa qaar ka mid ah dadka degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir si caadi ah u weydiinayay xaaladooda gaar ahaaneed iyo tan amni ee xaafadda ay ku nool yihiin, kuwa aad ugu faraxsanaan arkaan ra'iisul wasaarahooda. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.